warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin cadaan ah u geystay gabar Soomaali ah oo ay daris ahaayeen. weerarkan ay bulshada Soomaalida iyo hay'adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta Mareykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid sinjin nacayb ah. bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. gabadha furkan la kulantay oo lagu magacaabo Raxmo Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wajiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney Soomaaliyeed ah iyo nin cadaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa. waxaan guriga soo galay banqaylada banaanka maqlay daaqada fiiriyay waxaan arkay nin cadaan oo naagtiisa hayso kalaal u hayso gurigeeda hortiisa iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinaya naagtuna itaabo isaguna maagilay oo kashiib Afrika ku shiib gareynaya iyo wax ku haday dad ismaagaya marka maqlay xogaa aan dhageysto saarteen la kala saxeeyay ama hadin oo tegin oo iska daaqada iska xidhay oo iska joogay marka afurnay waan biyo cad gaariga jira waa jirbiyo cad gaariga kala socday marka hoos tagay gabadhii uu ninku la dagaalamay ma iikii ninkuna uu igu xigaanay hoos warkan anu karbanahay baarma isaguna waa kaan hoos oo laakiin waa same complex baana waa isku dhagan building isku dhagan baana waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysayteen ay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro isla markaana ay ka codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nabarku ku dhacay. markaas hoosta ay soo tagay gabadha iikii yaa telefoon ku hadlay wax dhalaalaya laysan masjidta markaas waxay tiri waxaan rabaa waxaan doonayaa adresskiisa doonayaa iyo qarninkan adresskiisa wajigeeda dharbaxay xasan waa arkay adresskiisa iyo qar wiilashan kula jira cunugeyga meesha ku jira gabadhan anigu ma aqaan waa first time alaasta lama qoraye wiilasha dad la hadlaysid booliskiisa wixii cunuga kaaga soo saaraya intan brabrigiisa ka dhaqaaq meesha ima qali weyday oo ku warwareegtay dhinaca way ignoor garaysay booliiskuna dhinaca way kala hadlaysaa waxaasi gurigisay ku cod ku dhowdahay yani wax yar ay nadali tufiid waxtaas u jirtay ninkii warkii hore uu xidhay albaabka la hadlayay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii way celcelinaysa markaasuu feed la dhacaya garaacaya waxay naagteeda don't hit me daawaysa way ku dhegantay laakiin gacmaha ay haysaa way celcelinaysaa ayadiina casoo baxdaasi baashay booliis kamid hadda isoo baxsanay booliiska waxa u jiraa saan ula hadlaya aniga oo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhiftay qaacadii unbaa ku warhelay dhulkaa ku dhacay naagtii xukmida anigii uu nabarka igu qaacadii u horreysay igu dhiftay way kaasha igu horreysay wax kale inuu igu dhiftay iyo nabarku igu dhiftay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhiftay xitaa waxaas kaylku iga jiray aniga isagoo ma eegaynin gabadhaan eegay naag Soomaaliyeed baan eegay. walow sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha ayaa xasan cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyeeda ka soo saareen iyaga iyo hay'ad la yiraahdo Care oo deegaanka ka hawlgasha isla markaana kadib markii la wareystay gabadha uu dhaawacu soo gaaray go'aan lagu gaaray inuu yahay fal nacayb ah. waxaan samaynay hadda press release baan samaynay hay'adda warmutiyeed oo aan la samaynay baladeeda Care looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayna ay arkeen waxay go'aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu salka ku hayo waayo haddii qofka la yidhaahdo ku laaba meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisna wax laga sheegay qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisa. Raxmo Warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanayso ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo. walwal ka qabo ninkan haata waxaana ku sameeyay intii waxay ku dhashay forno riisan aniga intii jiray isoo guriga jiray arano aniga jiray naagta kadib jiray qof ilaa galactic ismaagayo way laakiin aniga riisan igu dilay meesha oolin oo shay igu dilay hadana waxaan ku sameeyay meeshii joogo koorta waan ka baqayaa walaal. marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay fal kale oo kale waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan. dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafadda dad badan baa degan oo Soomaali ah fikrada jirta waxa weeyaan xitaa dadkii inay ka soo baxaan markhaati sheegaan bay diidan yihiin oo walbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa markhaati inta banaanka usoo baxo marka inankii kale waanu weynay waana raadinay xitaa kayskaa naloo sheegay gabadh kale ayana saddexaad baa naloo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo aan
alaaka kula hadalay hooyadayna waxay tii maxaa la yidhahdaa ha dacwoonin. falalka noocan oo kale ah ayaa qaar hadahayntoodu ay soo kordhayso waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris. haddii alla midrito isniintaana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dawladda oo aanu duqa magaalada iyo city councilkada kulli aan aragno waxaan ka codsanay in la sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay. falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161 waxaana haweeneyda dhaawac uu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen isla markaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tageen isla markaana uu naftiisa difaaciyay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi suuka ay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA.